بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada daawadayaal meel kasta joogtaan waa aala barnaamijkii su'aasha maanta oo naga barteen. Su'aashana maanta ayaa ku saabsan tahay saa ognahay doctor waqtiyada ramadaanka markii la gaaro maadaama hadda ramadaan ugu soo foodeyso su'aashana ku saabsan tahay ramadaanka markii waqtiyada ramadaanka la gaaro bisha ramadaan ay bilaabato waxaa albaabada la isku ruftaa oo la xiraa maqaayadaha marka arrintaas baa marka su'aal ka timid su'aashan waxay tahay maadaama ramadaankii cuntada iyo waxaas yani laga shaqayn karin asal ahaan ma banaan tahay in maadaama waddankan la joogo kira iyo wax la iska rabo haddii bishaas maqaayada la xiro maxaa la sameynaa marka haddii oo maqaayadin la xiro sidee isku waafajinaa ramadaanka iyo maqaayada doctor soo dhawo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد توفيق الله نوافجيه سبحانه وتعالى وسود هذا ولا كتحن برنامج أهل خير سؤال شو كصعبصا بشهر رمضان كمقاعدها أما مقاعدها إن لفرو مثلا شرعي وافق صن معها ساد أكتهن ضدك مسلمين تاع inuu ramadaanku waajib uu ku yahay maadaama ramadaanku waajib uu ku yahay maalinta ramadaanka waa inay afaystaan ay waxba cuninin haddii ay afaystaan waxaa loo baahan yahay wax alla wixii afurinaya inay ka fogaadaan iyo cid uu kaalmaysa afuritaanka lama ogola intaba maqaaxiyadaha waa in ay asalka aysan shaqayn maalinta ramadaanka laga bilaabo waagu hadduu beriyo ilaa qoraxdu ay ka dhacayso waqtigaasi waa waqtiga la sooman yahay hadday jiraan dad qaarkood musaafiriin ah ama dad gaalo ah iyo wixii lamid ah intuba u banayn mayso in maqaaxida qof muslima uu leeyahay uu gacanta ku hayo inuu furo u banayn mayso waa koowaadee bisha ramadaanka laftigeeda ixtiraam leh in xurmadeeda waa in la ilaaliyo oo qofka laftigiisa xataa afurani inuu muslimiinta dhexdooda wax ku cuno oo maaragtay bishii ramadaanka xurmadeeda ku xadgudbo lama ogola waxa weeyaan hadduu cunayo uu jiran yahay maalan ama gabadhii caadada qabto sida ay culimmadu yiraahdaan yuusan caan bixin oo bannaanka yuusan la tegin oo bisha ramadaanka xurmadeeda yuusan ku xadgudbinin haddii uu yahay qof soon ku waajibay marka asagoo soonka ku waajibay ilaahay caasinayana عد أو كلمة ساهي دم بيجي لهذا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بوله ليه هيزو كلمة حد جذب دم بيجي وافقوا لما أقول لو كلمة وافق قال كلفت جيسة وحيتها أصل كإن الله أقول أن بشهر رمضان كمال المسلمين تكلين وحكعونه احتراما لشهر رمضان ركن جالس أركان الإسلام كمية أيضا الله إلى نيو سادرت هذا لما أقول قالكوا لفت جيسو صانك قيامة ولا سؤالية إنكسوسن أدوية أو سكاء عن سحين سواء صلاة يولمدها ما صلاتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين تذكر كذا كمد ما ناهم بولي قف قالوا نار كعملت قيامه وحيلا أو الشيء قالوا يدم بيجا لو قابنا يكملها صلاة يصوم كي عبادين كي لكن كان سح ما يدوم ما دام وصل مسلم أو صناعي سادرت هذا وحال دنيا بشهر رمضان إن لوفرن مالنت رمضان إن لوفرن قاعدة مرة قفك وحان وسوي شيء إن دور حل qofkii iska leh maaragtay waan ogahay ijaar baa laga doonaya shaqaalaad bixinaysa wixii la mid ah ninka xulushaasi waxaa ka mid ah inaad bisha ramadaanka haddii aad awood u leedahay inaad fasax qaadatid oo shaqaalahagana fasax siidid oo bisha fasaxa ku aadisid waxaa kaloo samayn karaysa inaad renovating samaysid maqaaxidaha waa muddo markay joogaan renovating baa lagu sameeyaa oo dib baa loo habeeyaa sanadka dhan inaad balaneerin fiican samaysid oo bishaasi ijaarkeeda iyo wixii renovating galayay habka markaad renovating waxa ujeedaa af Soomaaliga si ay u fahmaan dadka kale oo maartay dayactirka bisha ramadaanka inaad ku aadid dayactirka waad ogtahay qarash baa gala qarashkaasna iskaadka iyo maartay lacagaha canshuurta laga jari lahayd way ka baxaysaa marka inaad si fiican u sii nidaamiso balaneerin fiican aad sii samaysto وسمين كريسة وحكلو سمين كرتا إن فرتيت أفرق وحكة تنبيه وتين تقول كجدول كمقاعدة أما مقاعدة جدول كذا أدبدش جدول كبشر رمضان كمرك اللي جاره عاد كده كتير وحكة بالأوضاع مغرب كدبديت
habeenkii ma garanaysaa suxuurta iyo wixii lamid ah oo dhammaantii ha kuu furaado arrimahaas oo dhammaanteed waa bil keli ah oo aad adiga laftigaagu cibaadaysanayso oo adiga laftigaagu aad maarata u baahan tahay nasasho u baahan tahay waan hubaa qof kasta oo maqaaxili ama meeshaas oo kale lehi sanadkii bil iyo fasax waxyaabuu doortaa marka hala nidaamsado ilaahina ha looga cabsado subxaanahu watacaala waa waxba yar berya weeyaan oo qofka uu joogayo xoolaha kaa soo galana waa dhammaanayaan saa darteeda qofku waxa fiican inuu ilaaliyo بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك إلهي waxaa miisaanka xasanaadka ku saaro waxaa aad iyo aad uma kaa mahad celinayna barnaamijkeena saasha maanta halkaas ayaa kusoo gabagabeynayna intii ay gaari doono mid kan lamid ah walaalkii maxamed shaafici wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام